sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qoys inaan noqono laba quraan ana la qasbogo malado hurdada baas lixdada saaxabin ma lila lawlaygu heesa wuxuu noqonayaa xarfahaasi xarfaha oo fanaaniinta yani of qualified singing markuu qofka yahay saasuu u heesayaa aariyaa lagu heesayaa ma aha sida caadiga markaa u heesaya wuxuu noqonaya sida laba walaala inaan noqono waalidin uu noqonaya still in tune waaye xarfahaas weeyaan xarfahaad u baahanta sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qoys inaan noqono lama qunaan ana la qashaqawga malado hurdada baas lixda saaxabin lila lawlay weesa waxa weeyaan waxay noqonaysaa casharadaas intunkii sida uu ku noqon lahaa codkaaga ama dariiqa uu ku noqon lahaa saas waaye dad waaye oo aan aqoonin talent ma hayaan kow codkan oo sheegayso bahalkan lagu qorxiyo codka dadkan heesaha aan heesaa codkaaga for example gitaarka waa 6 xaraf codkaaga hadduusan ku jirin xariga aad ka heesaysa hadduu kor fuulin codkaaga that means you are out of tune you're not in tune dadkani marka waxay ku badan yihiin codkooda ma noqon karo in tune maaha codkooda marka saas aawadeed aan u leeyahay dadkan aan codkoodii controli karin marka music instrument haddaadan aqoonin ma controli karto codkaaga dadkan waxaa ka fahmaysaa sheekadaas musiga loo soo garaaca dadkan hataa music asaga oo ma dareemayaan ma dareemi karaan dadku waa ku qasban yihiin marka inuu bahalkan adigo maxaa la dhahaa autotune ka isticmaalayaan autotune ka wuxuu ka dhigaa in tune ka dhigaya aniga ma u baahni waxaan ugu baahnay autotune wuxuu yahay ku tusaaya for example waxaan heesayaa and I'm gonna be your man xarafkaas wuxuu yahay asaga kan hadda aan kugu heesayo ku siinayaa asoo wax la kor saaray laakiin aniga markaan saan u hayso ma u baahnikiisi because codkayga in tune waay bahalka tune kan kuu sheegaya jawaabtiisa waxay noqotay dadka aan codkooda nf muxuu ahaa in tune ahayn aa loo isticmaalaa saas weeyaan robot camal u yeeraha bakay codkooda ma dhex geli karo xarfaha bakay ma yaqaanaan music instrument practical ma yaqaan theoretical ma yaqaan marka waa ku qasbiin waxay ku haysan ayaga memory ku haysan dhirindi walaalayaalo laxala dhirindin hando waxyaabahaas ku haysan way heesaha muusigooda intro u dheereeyay heesaha muusigu dheereeyay aqoon ma leh music ma yaqaanaan music marka intro waa dheer ismaysa intuusan hees soo galin melodiya dheer ah socoto melodiyaas waxay markay dad means ma yaqaan music wax la yaab leh waxa dadkaas ku sheeganaa inay fanaaniin yihiin TV-yadan dadkaas ka heesan that's why aan ugu riyooday in aan bedelo musiga Soomaaliya markaan aniga Soomaaliyan ku abtirsadaa af Soomaaliyan ku heesaa afkayga hooyo marka aad ku heesaysid waa inay in tune ugu heestaa oonan heesaha noqonin dadkan oo waqti xaadirkan hadda aan arkayno dad waaye modern technology ku soo aaday modern technology-ga wuxuu yahay computerkan waa qalab casri CD aan geliyaa organ-kan ku rakiba dhirin aan sameynaya yaa ku dub CD-ga meel lacagtiisa soo baxday dharaa soo gadatay telefishinada Soomaalida tagtay asoo dubatay fanaan mi ihi baan waay waxaas fanaan mi okay dariiqa fanaanka ma aan soo marin anigu music baysan tuma anigu haysaa didn't even know search is celebrities compete in my mind well heesaa meeshan
talent الله وحاس ما أنا تكسر بحساب ما حودون ياي دي أنيغو دي ما حساس please ودمغنا يا مركان هاي الصومالي عندك يشتو please be in tune music school music college music university أجيبه أنا أقول لك سي دي أنا هنا هل ما مسوق ده سي دي ها هبلو مجبتها أورج كم يجيك تأجلي ها ما حساس af Soomaaliga sidii loogu heesi lahaa wuxuu noqday bas iiwad ku dar bang ma aha afkaana u dhashay Soomaaliya ku abtirsanaa Kenya kuma abtirsanin Yemen kuma abtirsan Soomaaliya ku abtirsanaa afkiga ku heesisaa aan Yaasiin way xuseynaysaa marka adigu heesaa sheeganaysid tamiso nawaqaagiba iga galayna sidii dhuxul madow money money you need talent u baahan tahay please ha fiirinin lacagta adigu aad helaysid anoo aroosa ka heesaysaa iyo meela ka heesaysaa lacag lagu soo sii haya music ma baranay singa markii lacag bartay iskool ma taqaani iskool aroosa ka soo haystay arooska CD-ga oo qatar waa hebelay oo haystay injiin ku heesay kuwa arooska joogaaro music ma yaqaanaan sida aan shay kuwan telefishinada Soomaaliyeesha oo telefishinada Soomaalida ka hadla music school ma dhiganin mana yaqaanaan ninka ay ka wareysanayaan they don't know inuu in tune yahay oo out of tune yahay ma yaqaanaan ninkii oo marka telefishinka tagay oo fanaanka sheeganayay wala iga wareysta telefishinka wala iga wareysta hebel iga wareysta qataraan no Yaasiin Cali Qaasim jooga inta ku arkaayo wariyaha adigu ku wareysta anigu inuu yimaado hadal ma igu dhiikar because music ma yaqaanaba aroosa tagaysiin arooska ka soo hees ameela ka soo hees lacag lagu soo siinaya taas waxay noqonaysaa inaad caajis noqotid iskoolna ma dhiganaysid of course talent ma bahayn marka hore adoon talent wali iskoolna dhigto xoogaa soo dhawaato waa dhici kartaa lacag ka soo qaatay arooska ameela ka soo jeebka soo gashtay iskool bartay ma baran kartid iskool bartay lacag haystaa wixii iskoolka loo dhigay waa haystaa adigu no anigu shilin kuma haysto music shilin kama London waxaan degan 15 sano deganaa habeenna subax kun sharta been kama dhigin show been markay dadka anigu aan dhihi lahaa ilaahay sakaaray in tune ma araf tune way waxa soo 15 sano habeenna kama haysan London mar waa dhacdaa saaxiibada inay aroos iga maczuuman Yaasiin please khaasatan heer Manabolio ama heer Shibis ama heer Yaqshid ama heer Karaan ama heer Wadigley ama heer Xamarweyn heer Shingaan maczuuman Yaasiin kaar waa ku naqaana fanaankeen hore please no has